السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي meel walba aad joogtaan waa idin salaame kusoo dhawaada janaalkeena maalin cusub oo fashiya maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay burcadii ugu khatarsaneed ee soo martay Sacuudi Carabiya ee maalmahan baraha bulshada qabsad haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo like-na dhasiina share garay si asxaabtaada u gaaro kumitina ka bixi beednillah like far badan aan la iska saar insha Allah burcadan ninka aas-aasay waxaa la yiraahdaa Rashaash Al-Cutayb ninkan wuxuu ku dhashtay deegaan la yiraahdaa Xilbaan sanadkii 1960 ninkan markuu uu dhameystay waxbarashada wuxuu ku biiray ilaalada qaranka oo Sacuudiga ninkan meeshaas ayuu ka shaqeyn jiray shaqgab ayuu noqday nin oo mashaqaysta ah ayuu noqday kadibna ninkii waa la soo raacday ninkan markii la soo raacdeeyay meeshii oo shaqo kale uu raadsan lahay wuxuu ku fakaray in uu noqdo burcad asaga iyo wiil habaryartiis dhashay iyo 4 nin way iskaashadeen waxayna noqdeen burcad laamiga loo yaqaano Al-Xijaas dadka soo mari jiray ayuu dhici jiray 5 nin oo burcada baabuurka ay ku dhuuman jireen waxay sameey jireen baabuurkooda waxa laysan ay iska dhigi jireen ninka lixaad baabuurta meesha soo marayso ayuu gacanta u haatinayaa wuxuu leeyahay gaari ayaa iga halaabay kaalay ay caawiya markay dadka soo degtaan ee isdhahaan baabuurkan bal ahla caawiya waxaa ka soo baxayo 5 nin oo qoryo wataan qafka baabuurka waa laga dhacayaa lacagta meesha oo lacag haysta waa laga qaadanayaa hadda qafka iswaalwaalane waa la dilayaa heer waxaa la gaaray laamigaas in laga cabsado ee cidna soo marin waagaas ma jirin ciidanka ammaanka oo wadooyinka waagaas dowladda Sacuudiga baaritaan weyn ayay sameysay nimankaas wajiyadooda ayaa darbiyada meel walba lagu dhajiyay jaraa'idkana waa lagu soo qoray laakiin si kasta oo la yeelo waa la soo qaban waay ayagana waxay sii wateen hawshooda oo dhicitaan tuug kasta oo la soo qaban waayo waxyaabo yar oo macno darro ayaa lagu soo qabtaa tuugadii niman ka mid ah ayaa maalin waxay imaadeen doobiga dharka lagu dhaqo nimankii oo doobiga markay imaadeen ninka doobiga ka shaqeynayay ayaa aad uga shakiyay nimankii dharkii ayuuna ka qaaday nimankii markay ay baxeen wuxuu u wacay booliiska wuxuu ku yiri waxaan arkay nimankii musabaradooda meesha lagu soo dajinayay oo jaraa'idka lagu soo qorayay 2 nin oo ka mid ah calaadul waxaa meesha yimid booliiska ayaa imaaday waxayna xirteen dhar caadi ah waxayna iska dhigeen meesha inay ka shaqeynayaan doobiga macnaheedu waxa waaye meesha dharka lagu dhaqo oo lagu feereeyo waaye meeshaas waaye nimankii shaqaale ay iska dhigeen nimankii markay imaadeen ay isdhahdeen dharkaada waa lagu feereeyay waa lagu dhaqay soo doonta isdhaheen 2 nin marka ay ku soo laabteen meesha dharka ay ka qaadanayeen waa la qabtay 2 ninna waa la xiray 4 nin oo tuugada ahaayeen marka ay maqleen 2 nin waa la xiray ninka ugu weyn oo aas-aasihi ahaay wuxuu u baxsaday dalka Yemen kan oo Yemen u cararay waa la soo qabtay sirdoonka Yemen ayaa soo qabatay waxayna ku soo wareejisay Sacuudiga ayay ku soo wareejisay 3 kalena sida loo ceersanayay mid kamid ah wuu isdilay asaga ayaa gacantiisa isku dilay ninka kale dowladda ma aysan sheegin meesha uu ku dambeeyay laakiin ninkan buuraha ayuu koray wuxuuna ku fakaray kulli xabsi ayaa gali doontaa ee waxaa soo dishaa marka Sacuudiga boqor Fahad asaga oo u sii socdo ayaana meesha lagu dilay 3 kale oo xabsiga ku jirteen waxaa laga soo laalaadiyay geed waana la daldalay laakiin meesha lagama qaadin
oo waxay meesha sii yaaleen muddo hal isbuuc ayay meesha sii yaaleen. mar hore ayay ahayd, laakiin hadda ayaa lasoo cusboonaysiiyey. baraha carabta ayayna qabsatay oo bulshada waxayna u qabsatay. waxaa laga sameeyey musalsal ayaa laga sameeyey, saas ayayna ma arkin oo loo soo jadiidiyey oo loo soo cusboonaysiiyey. muuqaalkeena intaas ayuu ku eg yahay. leeg saar insha allah biidnillaah. haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar, gabaleelkana furo, leeg siina sheer garay si uu asxaabtaada u gaaro, komitina ka bixi insha allah biidnillaah. sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.